السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرنامج كانوني كوغان دونو heerkay technologydu hadda ka taagan tahay adduunka. haddaba sidaan wada ogsoonahay heerkay maanta ka joogto technologydu waa mid aad u sarreysa sida dhaqalaha iyo heerarka kala duwan ee adeegsiga technologyada ee maanta aadanu isticmaalo. dhanka kale horumarka adduunka technologyada ayaa noqonaysa wax cusub sida laga soo xigtay ururka isgaarsiinta caalamiga ee ITU. haddaba barnaamijkan waxaan ku iftiimin doonaa mustaqbalka maxaa laga saadaalinaya technologyada heer intee leeg ayay gaadhi doontaa dunida aan ku noolnahay. marka aan maanta eegno isticmaalka technologyada waa mid aad u sii kordhaysa adeegsiga heerarka kala duwan ee technologyadu. dhanka isgaarsiinta waxaa maanta maraysa meel aad u sarreysa iyadoo hadda la isticmaalo applicationo kala duwan oo dhanka isgaarsiinta ah sida Facebook iyo noocyo kale oo badan. tiknoolajiyada ayaa dhinaca suuqyada wax badan ka bedeshay oo waxaa hadda la isticmaalaa suuqyo ku shaqaynaya qaab online ah oo loo adeegsado qaabab kala duwan ee tiknoolajiyada sida website-yada iyo page-ka online-ka ah oo dad badan u saamaxday inay si fudud ula socdaan suuqyada iyo wax kala iibsiga iyo heerarka kala duwan ee qiimayaasha suuqyadu ay marayaan. haddaba sida la saadaalinayo mustaqbalka iyo heerka ay maanta ku socoto technologyadu waa mid maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhaysa oo waxaa soo baxaya qaab casri ah oo ka sii sarreysa qaababkii hore ee technologyada taasoo dhinaca isgaarsiinta iyo socdaalka dhinaca dhaqalaha wax badan ka bedelaysa. siday ka muuqata heerka ay maanta marayso technologyadu iyo saadaalinta ayaa laga yaabaa in dunidu ay guurto qaab ay shaqayso technologyadu oo laga guura wax badan oo dadku qaban jireen.